dhaqaatiirta dalkaasi Hindiya ayaa waxaa la sheegayaa in ruux bukaan ay ka soo saareen kili culeyskeeda uu ku dhow yahay 8 kilogram waana arin aad loola yaabay. dhaqaatiirtani waxa ay sheegayaan in marka la eego kilidan culeyskeeda uu dhigmo 2 cunug oo yaryar oo markaas dhashay oo la isku daray culeyskii uu lahaan lahaa in kilidan ay leedahay, waxaana la aaminsan yahay in arintani ay tahay tii ugu horeysay oo dalkaasi Hindiya ka dhacdo marka la eego. caadiyan culeyska kilida waxaa lagu sheegaa in ay dhan tahay 120 ilaa 150 gram, waxaana bukaankani la sheegay inuu la xanuunsanayay xanuun lagu magacaabo autosomal dominant oo ah xanuun aad looga deeriyo oo dhankaasi keliyahana virus ku dhaca uu yahay. arintaasi ayaa loo aaneynaya inay tahay arinta keentay ninkan in kelidiisa culeys intaasi la eg ay yeelato. mid ka mid a dhaqaatiirta qalliinka ku sameeyey ninkani waxa uu sheegay in xanuunkani uu yahay mid aad loo yaqaano isagana uu wato saameyntani. dhaqaatiirta kale ee ku sugan Delhi operationka ama qalliinka ninkan lagu sameeyeyna qaybta ka qaatay waxa ay sheegeen in ay arintani ay la noqotay la yaab kadib markii culeyska kilida ninkani ay aad ula yaabeen. dhacdadanna waxaa la sheegayaa inay tahay mid ku cusub dalkaas Hindiya, inkastoo ay jiraan caalamka meelo badan oo horey looga arkay arrimo noocaani oo kale ah, waxaana dhaqaatiirta ay sheegeen in ay filayaan in ninkani uu bogsoodo, inkastoo la sheegayo xataa kilida kale in sidaan oo kale ay culeys intaani ulaag ay leedahay. waxaa la sheegay in ay marka la eego warbixinada caalamka laga soo aruuriyey ee tilmaamaya dhacdooyinka noocan oo kale waxaa la mid ah in dalkaasi Guinea ay ka dhacday arin noocan oo kale oo ruux laga soo saaray kilo gaarayso 4.5 kilogram, waxaana jirta in sidoo kale meelaha ugu daran arintani ama meelaha ugu weyn arintan lagu arkay kamid ah dalkaasi Mareykanka oo ruux laga soo saaray 9 kilogram kili culeyskeeda uu gaarayo. dalkaasi Netherlands 8.7 kilogram ayaa laga soo wariyay, balse arintan la xiriirta in ruux laga soo saaro kili gaaraysa ama ku dhow 8 kilogram dalkaasi Hindiya waa markii ugu horeysay oo arin noocan oo kale ay dhacdo. website ka faalooda arrimaha caafimaadkana waxa uu soo warinayaa in ay naadir tahay in ruux intaani oo kale ah laga helo, balse waxay sheegeen cudurkan sida gaarka ah ninkani ugu dhacay bukaanka ah ee qalinka loogu sameeyey dalkaas Hindiya in ay tahay dadka u dhaxeeyo in cudurkan uu ku dhaco 30 ilaa 60 sano inta u dhaxeyso. dhowr jeer horena la arkay balse ay tahay arin iska naadir ah.